xariir maxamed warsame gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Togdheer ee awal bari oo bulsha TV kula hadlay hotel Daalo ee magaalada Burco ayaa ka hadlay abaarta iyo biyo yaraan soo wajahday deegaanada gobolka Togdheer oo ay kamid yihiin Labiguun, Sanyare, Bicilweyso, Waraabeeyo, Harada iyo Bisiqa wuxuuna ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha khayriga ah in ay gacan ka geystaan caawimada dadka iyo deegaankan. waxaan anigu ahay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Togdheer ee awal bari gobolka Togdheer nawaaxigiisa hawdka ee wadada dheer ayaa biyo la'aan baan ka jirtaa waxa weeyaan gaajada waa loo noolaa laakiin biyo la'aanta looma noolaado noolo kastoo Ilaahay abuurto waxay biyo la'aan ma noolaan karaan biyahay ku nool yihiin waxaan leeyahay dadka loo gurmado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyo iyo xukuumaddiisa iyo ganacsatada urbajoogta dhammaan dadka muxsiniinta waxaan leeyahay umadiina u gargaara Ilaahayna wuxuu yiri marka isu naxariista mardiin naxariisanaya Ilaahay baan inuu weydiinaa raxmad inuu Ilaahay raxmad u shubo oo Ilaahay raxmadiisa ku dhargiyo oo abaaraha ka soo jabiyo dhammaan ummadda muslimiinta. xariir maxamed warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa ku bogaadiyay xukuumadda Soomaaliland xisbiyada iyo gudida doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland habka ay u mareen xulista iyo wada shaqaynta musharaxiinta doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland isagoo hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in mudnaanta la siiyo dhalinyarta da'yarta ah ee Soomaaliland. waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi doorka uu doorashada ka qaatay iyo go'aanka fiican oo ka qaatay xalay taariikhda ku qori doonta komishiga qaranka oo iyaguna door fiican ka ciyaaray diiwaangelintii gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay haday tahay kaad bedelkii iyo haday tahay diiwaangelintii horeba si fiican bay door fiican bay ka qaateen oo mahad celinaya bulshada Soomaaliland oo mahadnaqaya iyaguna si fiican ay diiwaangeliyeen ee uga qayb qaateen dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada u tartamaya ee uu madaxweynuhu siiyay chanceska inay dhalinyaradu tartanto iyaduna waa fursad muhiim ah madaxweynaha ku boorinayo ku hambalyeeyo aad iyo aad ban go'aanka uu madaxweynuhu qaatay ee geesinimada leh haday dhaqaale tahay iyo haday tahay maxay raahday in doorasho wadanka ka dhacdo oo wadanka isbedel ka dhaco doorasho ka qabsanto labadaba uu ka qaatay iyaguna waxaan u mahadnaqayaa iyagana xisbiyada qaranka oo iyaguna doorkooda ka ciyaaray oo door muhiim ah iyaguna ka qaatay go'aankii iyaguna la qaatay waxaan leeyahay dhalinyarada aqoonta leh wadanka wax ka bedelaysa iyo wadanka wax ku soo kordhinaysa waxaan leeyahay dhalinyaradu ka war hayso codkoodana ha siiyaan gaar ahaan ninka Togdheer ka sharxan ee la yiraahdo Maxamed Xaaji Yaasiin Siciid waxaan leeyahay dhalinyarada awal bari ha ogaato waa fahmi kay saxirsi bulsha TV Burco.